iyana waa caqiido hore qadiima oo Yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25 Disembar asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda Yurub waqooyigeeda dadka degaa waxa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yiraahdo la bariyaa inay soo noqoto marka ihtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopedia-haasi Ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen Romanskii oo fikradan qaatay oo ay aad ugu ballaaran tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ayay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yiraahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lama garan hada goor u dhashay afar qarni baan kiniisadda waxa ka diidaneed waqti ku dhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yiraahdaan Christmas Day aanu ixtiraafno oo 1 January maxaa laga dhigay markaa qola kamida kanaaysta qayb kamida waxay yiraahdaan anaana waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qola waxay u qaateen January 1st inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qola kale waxay yiraahdeen maya dadku buu dabaaldegay oo xagee ka timi 1 January in la dabaaldego waxay yiraahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray guga de March buu ahaa dhexdiisa waana tii Babylonianka iyo Romanskii hore bay dabaaldegi jireen laakiin Romansku markay kalendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in 1 January la dabaaldego dabeetana tii Romanskii qaldanayd baa la qaatay dabeetana waa la dabaaldegay 1 January astronomically macna ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba macna uu sheegaya ma jiro waa jiilaal sida ogeed wax loo dabaaldego meesha yaala ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay inay isku dayeen nimankii wadaadadii kiniisaddu inay isku dayaan inay markaasi wadaadadii kiniisaddu waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan koob dabaaldegani waa dabaaldeg mushrikiin ilaahay marka koowaad waa marka labaad waa mushriga waxa ku sii raacay Kristan wadaadadii Kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labada kooxood isku raaceen inaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabaha ay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tilmaamay koow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysanayeen caadadaasi ay rumaysanayeen waxay sheegaysay reerkoo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldega marka la samaynayo January bay dhahaan kowdeeda qofka kugu horeeya ku soo galaa hadduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhahaan nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday ku soo galaan laakiin dib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilma yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmaha yar berigii hore waxa iska lahaan jiray Asian Egyptianiski iyo Chinese-ka labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan Jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu Jesus yahay oo isaga la qaado ilmaha yar waa la qaaday